السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال إذا لهانتين بميل كستاد كسوغنتين كسو دواada barnaamijkii caafimaadka barnaamijka caafimaadka waxa aala beedi la socodsiisa anigoo Xamdi Cabdi Sogsaga hadaba daawadayaal barnaamijkeena caawa waxa inoogu martiya Dr. Saad Umar Maxamuud oo kamid ah dhakhaatiirta ka hawlgashay Hargeysa Group Hospital. Dr. Saad Umar Maxamuud waa doctor ku takhasusay dhinaca indhaha. Daawadayaal goobta aan ku suganahay waa Hotel Adamis. Intaynaan furin barnaamijka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan hawlwadeennada Hotel Adamis. Ugu horeyn Dr. Saad Umar Maxamuud ku soo dhaw barnaamijkii caafimaadka. Mahadsantahay alxamdulillaah ku dhawaay. وهاجاك دكتور أنا يداوديا شباب واحد شرح كود نقصيسا إن قيبها إيش يقابك وحوارته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إن وهرين هرتا وحن أمهات علني إن تلفزيون بدعس 24 تي في يدم الله ورودين ديسا. إن برنامج هذا السنة كلا برشة فائدة وله أدودان إن أدبني كلير كلنيا أدنى نديكم بلينيا. barnaamijyada sano kale ayna sii dhiirigelisaan oo aad sii wadaan waan idinku boorigelinayaa haddii aan soo gudbo su'aasha aad weydiisay kolley issue waxa weeyaan waa daaqada ama halka ugu horeysa ee bini'aadanku uu ka dareemo adduunyada uu ku nool yahay tilmaanta ugu horeysa ee aynu ku bixin karna ee la taaban karo waxa weeyaan waa kameradan aynu sida tooska aynu aragno ee bini'aadanku gacanta ku sameeyay waxyaabaha ugu dhow ee imka la yiraahdo waa sida taasoo kale ishna u samaysan tahay sideedabana waxa la yiraahdaa badanka waxyaabo kasta oo gacanta lagu sameeyo waxa laga raacaa wax Ilaahay sameeyay subxaanahu wa ta'aala marka waxa ugu horeeya in oran karna ishu way shabahdaa waxa weeyaan waa kamarada marka ishu waxay u samaysan tahay like camera sida kamarada kale u samaysan tahay shape-keeduna waxa weeyaan sida beedka oo kale ay u samaysan tahay marka guud ahaan dusha laga fiiriyo isha kulli qeybay ka sii kooban tahay qaybaha in badan oo bulshada kamid oo inta day waxbarasho uun gaadhay kulli bulshada way fahamsan tahay isha iyo qaybaha ka kooban tahay balse waxaan isku yeeray doonaa inaynu yara tusno oo aynu wax ka yara tilmaano qaybaha ay ka kooban tahay ee ugu muhiimsan inta ugu muhiimsan aynu ka gaari karno maadaama ay billions layers ka kooban tahay ishu qaybaha ugu horeeya inuu ka gaari karno aynu ka tilmaami doonaa marka ugu horeysa kulli ishu waxay ka kooban tahay alga ugu horeysa ee qaybta ilaalisa waxa weeyaan waa baalashan ugu horeeya oo kulli qayb muhiim ka qaata ilaalinta isha qaybta labaad ee ugu muhiimsan ee xubinta labaad ee arag ahaan ugu muhiimsan loo qiimeeyaan waxa weeyaan waa xubinta loo yaqaan cornea marka lagu eegayo xagga qaybta marka luqadda English ahaan loo eegayo ama muraayadda hore ee aragga muraayaddaas waxay qayb muhiim ka qaadataa in araggu uu gaadho qaybta dambe shabakada dambe ama ratiinaha ee araggu ku dhaco marka kulli waxaan odhan karnaa waa muraayad kamid ah muraayadaha ay kamaraduna leedahay ishuna ay leedahay wana muraayadda ugu horeysa kamaradu leedahay muraayadda ugu horeysa ay ishu leedahay kulli waxa jira qaybo kale oo badan oo haday noqoto dareere sida jelka oo kale ah oo transparent ah qayb ka qaatay isagu aragga iyo bikaacada isha oo iyadu gudaha ku jirta oo badan aynu naqaano inay waatan badanka caadka oo kale ku sameysmo oo ah qayb muhiim ah ka isha in ishu araggu u gaadho qaybta dambe isha ahna xubinta labaad amba muraayadda labaad ee ugu muhiimsan isha marka loo eegayo xagga aragga muraayadda marka la sii dhaafay xagga dambe isha loo sii dhaafo waxa ku xiga jelka ugu badan ee ishu ay ka kooban tahay sameynayana shape-ka ishu ay leedahay amba qaabka ay leedahayna sameynaya waxa weeyaan waa jelka loo yaqaan vitreous hammer oo qayb weyn ka ah isha qaybta ugu badanna ka ah qaybta markuu araggu iyo iftiinku u dhaafo wuxuu u gudbaa qaybta dambe ee shabakada dambe ee aragga hal iftiin oo ishu marka ugu horeysay saa u aragto wuxuu soo marayaa intaas oo leeyer aynu imika soo tirinay ee mankorne laga soo bilaabo ilaa halka ugu dambeysay shabakada imkaan soo gaarnay isagoo soo dhex maraya intaas oo transparent medium ah amba gudbiyayaal uu soo dhaafayo oo laga bilaabo corneaha lagu xigsiiyo qaybta dambe dareeraha hore ee isha oo loo yaqaan aqueous hammer lagu sii xigsiiyo lenska aba bikaacada lagu sii xigsiiyo vitreouska aan sheegnay imka jelka ugu badan ee qaybta ugu badan leh isha sameynaya lagu sii xigsiiyo ugu dambeeyo ratiinada oo ah qaybta u bedesha araggii amba iftiinkii amba waxyaabihii amba sawirkii ay ishu aragtay u bedesha signals amba impulses u bedesha impulseskaas oo kadibna uu qaado optic nerve-ka amba nerve-ka amba dareenka isha uu qaado kadib uu sii gudbiyo maskaxduna intaasoo marka ay sii marto intaasoo nerve oo kala dambeeya marka ay isku sii weydaarato
aakhir ugu dambeyn lagu turjumo halka ugu dambaysa ee maskaxda loo yaqaano area 17 loo yaqaano labada area lagu turjumo kadibna la soo celiyo fariintii dib loo soo celiyo fariintii oo turjuman oo maskaxdu ay garanayso wax sheegani waxa uu yahay dib loo soo turjumay oo kadib dib loo soo gudbiyay kadibna maskaxdaadu ay garan karto waxaan ma qof baa ma hebel baa qofkii aad taqaanayba ma walaxba aad hore u taqaanayba ma wax kugu cusub baa kadibna ay maskaxdu u gudbin karto inay ku sharaxdo adigii haddii ay walax kugu cusub tahayna ay ku dari karto inay record garayso si mar labaad haddii aad dib u aragto ay sababi karto inaad dib u aad mar kale oo aad aragto aad garan karto walaxdan inay tii markii aad aragtay tahay waxyaabaha qabata tahay waxyaabaha noocaya qabatay tahay marka kulli waxa weeyaan ishu waa inahaasay ka kooban tahay systemkana waxa u aragtaa kulli waa nimco ilaahay nimcaanka ilaahay uga mahadnaqna ay tahay inahaasay kusoo koobiya su-aasha labaad ee noogu xigta waxay noqon doontaa waa maxay xanuunada ugu badan ee soo wajaha bulshadeena guud ahaan ka Somaliland ahaan iyo dhammaan geeska Afrika iyo dhammaan caalamka marka aan u eegno waxa jira xanuuno marka loo eego hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay u taqaano xanuunada ugu badan ee isha ku dhaca iyo sida ay u kala muhiimsan yihiin ay u kala horeeyaan inagu badan research toos ah ma sameeyno oo research aynu ku garan karno xanuunka amba wasaaradda caafimaadku ay sameyso aba hay'adaha dhammaan ka howlgala ay yar yihiin research la sameeyo oo indhaha la xiriira marka laga tago ardayda jaamacadaha ka baxda haddii ay noqoto kuwa masterta ee indhaha la xidhiidha amba kuwa digriga ee indhaha oo iyagu imika badanka sameeya marka ay jaamacadda ka baxayaan research marka guud ahaan waxaan odhan karnaa xanuunada ugu badan ee isha ku dhaca waxa weeyaan xanuunka ugu badan ee imika la aqoonsan yahay marka loo eego guud ahaan garaadkeena markaynu eegno inta ugu badan dhakhtarka lagu arkayo ee qiimeyn ahaan ku sameyn karno iyo guud ahaan inta hay'adda WHO u taqaano xanuunkaas inuu yahay ugu badan ee dhammaan caalamka iyo guud ahaan Afrika gaar ahaan Somaliland iyo dhammaan dawladaha saxaraha ka hooseeya loo yaqaan inuu ugu badan yahay dhammaan dawladaha ee cadeedu inta ugu badan ay hela waxa la oran karaa waxa weeye xanuunka caadka oo boqolkiiba 51 ka ah xanuunada ku dhaca indhaha boqolkiiba 51 ayuu keenaa arag la'aan waa xanuun sababi kara arag la'aan joogto ah isla markaana keeni kara arag la daaweyn karo oo la sixi karo marka waxa weeyaan xanuunka koobaad aynu oran karno xanuunka ugu horeeya ku dhaca indhaha xanuunka labaad badanaaba isagana la yiraahdo waa xanuun inta ugu badan ku dhaca bulshadeena waxa weeyaan waa xanuunka loo yaqaan qaladka aragga ama refractive error waxa weeyaan xanuunkaasna qayb muhiim ah ayuu ka yahay indhalaanta labadooda marka la isku daro 75% ay ka yihiin guud ahaan xanuunada ku dhaca indhaha xanuunada kale aan oran karnaa imka bulshadeena ay ku soo badanayaan oo aad bay ugu badan yihiin lagamana warqabo waxa kamid ah xanuunka kala koomada ama biyaha loo yaqaano xanuunka kale aan ku sii dari karno ee ku sii xiga waxa weeyaan waa xanuunada ka sii yara hooseeya haddii noqoto diabetic retinopathy ama xanuunka macaanku keeno kadib markuu macaanku muddo isha macaanku qofka ku jiro sababi kara inuu indho la'aan keeno iyo xanuunada kale sida jugtii oo qofka soo gaadho kale indho la'aanta ay sababto kolley xanuunada kale allergiguna iyaguna qayb bay ka yihiin marka inahaas iyo kolley xanuuno yaroo kale iyaguna iska soo raaco oo tiro yar ayaa jira iyaguna marka inahaas kolley xanuunadaas ugu badan sida katraka oo kale xanuunada ugu muhiimsan weeyaan ee bulshadeena aadka ugu badan aad baad mahadsan tahay doctor xanuuno tiro badan baad soo tirisay tusaale ahaan xanuunka galakoomada ama biyaha indhaha ku furma qofka marka uu ku dhaco astaamo noocee ah ayaa lagu garan karaa qofka in galakooma hayso xanuunkan galakooma kolley waa xanuun bulshadeena imka kusoo badanaya dhammaan dowladuhuna ay aqoonsan yihiin inuu yahay xanuun aad iyo aad halis oo ah isla markaana araggiisa inta uu aragga qaado sababi karana arag la'aan inta uu aragga qaadina aan la soo celin karin kolley waxa weeyaan waa xanuunka aan odhan karno waa xanuunada ugu adag ee isha ku dhaca isla markaana dhakhaatiirtu marka ay arkaan xanuunkan oo qofkan uu indhabeelay ay dhamaantii ku noqon karto wax dee aan la qaadan karin oo dee kulli dhamaantii ay tahay qofku inuu baaritaan sameeyo maadaama inaga bulshadeenu ay caafimaad ahaan aynu aad u hooseyno marka loo eego xagga primary health care oo kale aynu aad uga hooseyno primary care-kuna uu kasii liito weli aynaan gaadhin weli wax primary care la yidhaahdo dhammaan bulshadeena aynay wada gaadhin inta yare ku kooban guud ahaan caasimadda oo kale ayuunbaa hesha in indhahooda ay dhakhtar caadi oo ophthalmologist amba optometrist ay arkaan dhakhtar indhaha takhasus ah ay arkaan kolley inahaasunba aada ugu kooban marka kolley xanuunka galakooma waa xanuunka
aynu odhan karno xanuun aad iyo aad u dhib badan. astaamaha uu qofku isku arki karaa way kala duwan yihiin. xanuunkani laba qaybood buu intiisa ugu badan u qaybsamaa. waa mid degdeg ah oo qofka degdeg ugu dhaca isla markaana aanad sii garan karin, dhakhtarkuna aanu sii garan karin ka hor inta aanu xanuunku dhicin, iyo mid muddo soo jiitama. haddaynu ka horeyno ka muddada soo jiitama, waxa weeyaan saameyn kala duwan buu leeyahay. markaa laga yaabaa qofku inaanu dareeminba xanuunkan inuu hayo iyo in kale. wuxuu qofku isku arki karaa in madmadow yar oo kale ay ishiisa hor socdaan oo kale, sida kale u egeg taqsiga oo kale, amba kaneecada oo kale, amba goobo oo kale ayuu dareemaya in indhihiisa ay hor socdaan. wax xanuunana ma laha xanuunkani. waxaana loo yaqaanaa tuugga aragga badanka loo yaqaanaa, waayo adigoon dareemi karin, aan dareemin, wax dareena aan helin, ayaad unba laga yaabaa in araggaagii marba marka dambeysa soo yaraado. waxaa kaloo qofku arki karaa in araggiisa hareeraha marka dhinaca la joogo qofku waxaa arki karaa ilaa 80% ilaa 90% dhinacan ka arki karaa. marka dhinaca laga eego araggiisu hareeraha ayuu kasoo yaraanaya ilaa marka dambe isku soo haro in tuumbadoo kale lamid ah xilliyada ugu dambeeya airlist marka xilliyada ugu dambeysa soo gaadho in yaroo goobo oo keliya araggiisa ay kusoo hadho. kolley waxyaabaha keeno waxaa ka mid ah in laba siyaabood buu badanka ku iman karaa. in waxa weeyaan biyo caadiya oo waxaa jira isha ku jira oo si markii dhawaan soo tilmaamayna biyaha hore ee isha loo yaqaano, biyaha laba mid unbaa badan unbaa sababi kara. in biyaha soo saaritaankoodii uu farabato kadibna ishii uu ku bato, iyo in meeshii biyahaas ka baxayeen marka isha soo maraan ee isha hawshoodii ay ka dhammaato laga saarayay amba khashinsaar ahaan looga saarayay in daloolkii ay ka baxayeen oo xidhmo. haddii daloolkaasi xidhmo waxay keeni karaa inuu cadaadiska isha kor u qaado. kadib cadaadiska isha markuu kor u kaco wuxuu sababi karaa qeybta dambe ee halkii soo tilmaanay xididkii aragga qaadiyey markuu dhammaan araggu soo maro xubnihaynu soo tilmaanay ugu dambeyn ku dhacay signalska marka loo bedelo qaadiyay maskaxda u gudbinayay in xididkaa cadaadis ku dhaco. kadib cadaadiskaa ku dhaca kadib uu yimaado in xididadii marayay xididkaa waxa dhex mara xididada dhiig ka qaado oo kale, kuwii nafaqada uu qaadayay hareeraha isha oo dhan baa mara. markay ku dhacaan inuu yaraado maritaankii dhiigga iyo nafaqadu inuu yaraado. kadib markastoo nafaqada iyo dhiiggu sii yaraado waxaa soo dhimanaya neerfiska hareeraha ku jira oo dhan baa soo dhimanaya. marka siday soo dhintaana waxaa yaraanaya araggaagiibaa sii yaraanaya. marka kolley inahaas kusoo koobi karna xanuunkaas inuu dhibaatooyin fara badanna waa leeyahay. bulshadana waxaynu ku wacyigelinaynaa inay si joogta ah baaritaan joogta ah sameeyaan si xanuunkaa loo dabar jaro. oo xanuunkaa kolley qeybtiisa labaad haddii aan ugu gudbino waxa weeyaan qeybta degdega ku dhacda. qeybta kolley waxaan odhan karaa qofku mana sii garan karo, dhakhtarkuna ma sii garan karo in xanuunkana qofka kusoo socdo. waxa weeyaan qeybtaas waxay qofka ku keeni kartaa in araggiisii yaraado, casaan fara badan isha uu ku arko, laga yaabaa inuu matag yeesho iyo yalaalugo uu yeesho. badanaana sida dhacda waxa weeyaan qofka marka lagu arko matag iyo yalaaluguda marka lagu arko amba ay kusii badato badanaa lama geeyo dhakhtar indhaha ee waxaa la geeyaa un emergencyga unbaa la geeyaa. laga yaabaa inay joogaan dhakhaatiiraan indhaha takhasus saasa usii lahayn, kadibna ay dhacdo in lala tacaalo maxaa keenay matagan faraha badan leh iyo yalaalugudan qofka maxaa ku keenay. sidoo kale waxay leedahay madax xanuun fara badan. qofkii laga daweeyo un madax xanuunka faraha badan leh iyo matag inuu keenayo, laakiin aan la ogaanba in xanuunka keenay uu yahay isha. sidaas aawadeed waxaa badanaa dhacda xanuunkaas marka qofka uu ku dhaco inuu qofka degdeg u indhabeelo, maadaama uu in badan yaalo emergencyga qeybta degdega cisbitaalka un lagu hayo oo aan loo gudbin dhakhtar indhaha lana sheegin inuu xanuunkani hayo. badanaa waxaa dhacda inuu qofku indha la-aan uu sababsado sababo la xiriira daaweyn la-aan aawadood. markaa kolley waxaynu u baahannahay marka ahaan somalilan ahaan oo kale la eego in aada looga warhayo dadkan badanaa oo xanuunadan oo kale ku imanaya. marka qofkana waxaan ku boorgelina hadduu isku arko casaan joogta ah oo muddo kooban leh, araggiyo yaraaday, yalaalugada faraha badan leh oo isku arko qofku matag uu yeesho, madax xanuun joogtaa uu yeesho, inuu si degdega ula xidhiidho dhakhtar indhaha. keliya aanu la xidhiidhin dhakhaatiirta xanuunada guud ula xidhiidho dhakhtar indhahana uu bal si gaara uu soo eego. aad baad umahadsan tahay doctor. waxaan rajeynayaa wacyigelinta faraha badan leh ee halkan aad uga gudbisay daawadayaasha in daawadayaal fara badani ay ka faa'iideysan doonaan. doctor, inagoo weli ku guda jirnay xanuunka galakoomada ma laga daawoobi karaa? kolley sidaan sheegnay markii hore waxa weeyaan xanuunkani wuxuu dilaa, waxaa dhimanaya dareenkii ama neerfihii baa dhimanaya qeybta dambe shabakada dambe araggu lahayd. keliyata qofka waxaa lala tacaalaa intaa u hadhay aragga in la badbaadiyo. marka haddii nasiib wanaag uu helo qofkani daawooyin ku filan, qalliin ku filan uu helo, waxa uu awood u leeyahay intaa araggiisa u hadhay oo keliya inay safe u ahaato oo intaasoo keliya wax kusii arko. laakiin aragga intii tagtay lamana soo celin karo,
dibna loogama tegi kara waxa weeyaan intaa hadhay uun in loo ilaaliyo. doctor aan ka yaranimaadna dhinaca cudurrada sanadadan dambe waxay nagu soo batay isticmaalka isgaadhsiinta casriga hadday noqoto baraha bulshada oo dhalinyartu aad u isticmaasho, hadday noqoto daawashada tviyada oo laga yaabo guryaha qaar inay yaalaan 2 tv ama 3 tv, hadday noqoto kombiyuutarskii oo shaqooyinka intooda badan loo isticmaalo, hadday noqoto moobilada waaweyn smartphone-ka isticmaalkooda oo odayga weyna 60 jirka ayayna tira 60 jirkiisku si ay u isticmaalaan waqti xaadirkan. mararka qaarna waxaaba dhacda caruurteeda markay qalqaali noqoto ee aanay gaadhin waqtigii iskuulka lagu dari lahaa in loo soo iibiyo moobilo waaweyn oo ay baadhiya ah si ay ugu daawadaan filin kartoonka isla markaana uga raystaan orodka faraha badan leh. doctor Saad isku soo wada duubo tiknoolajiyada casriga isticmaalkeeda waqti xaadirkan nagu soo xoogaysatay dhibaato intee leeg ayay u keensan kartaa aragtida qofka bini'aadamka. kale xamday sidaad sheegtay waxa weeyaan waa inihii dambe waxaynu arkaynay inay nolosheena ka mid noqotay isgaarsiintaas telefoonadoo kale kombiyuutarradoo kale oo aan shaqo la qaban karinba iyaga la-aantood aanu qofku joogi karinba mobile smartphone la-aantii oo badanka imka saaxiibka ugu dhawey dadku yeesheenba. kolley sidaa uu saameynta ugu yeeshay bulshadeena waxa weeyaan si gaarna waxa uu saameyn ugu leeyahay indhihii marka si joogta ah qofkii uu aadka u isticmaalo badanaa waxaa laga yaabaa qofku inuu arko madax xanuun iyo muddo markuu si joogta u isticmaalo. marka laga tego bahalada qaar oo ina soo gaadha sida moobilo qaar oo aan ahayn moobilo si fiican loo soo sameeyey oo rayiska ay bixinayaan ay saameyn ku yeelan karaan qaybta dambe ee shabakada dambe isha guud ahaana isha ay saameyn ku keeni karaan. marka taa laga tago waxa ugu badan ee bulshadeena sabab marka cisbitaalka la joogo aadka loogu arka waxa weeyaan inuu sababo madax xanuun joogta iyo qofka arag dareema markuu aad u isticmaalo in araggii dhawaa iyo kii dheeraa labaduba aad u yaraanayaan. sida badanaana imika la ikhtiraacay waxaa la ogaaday in dadka ay badanaa ku keenaan xanuunka la yaqaano computer vision syndrome oo ay sababaan moobiladoo kale kombiyuutarkaoo kale tvgoo kale sida ugu badanna dadka badanka aadka ugu shaqeeya kombiyuutarka kaa uu sabab u yahay. kale xanuunkaasi wuxuu keenaa badanka madax xanuun joogta oo qofku markuu muddo isticmaalo kombiyuutarka muddo isticmaalo laga yaaba inuu madax xanuun joogta yeesho, laga yaaba inuu araggiisii dhawaa iyo kii dheeraaba yaraadaan, inuuna kombiyuutarka muddo intaa ka badan si isticmaali karin. marka kolley talo ahaan waxaynu siinaynaa qofka computer vision syndrome-ka xanuunadaas oo kala dareema sida araggiyo yaraado oo kale madax xanuunkaa joogtada oo kala dareema qofkaas inuu la yar tashado dhakhtar indhaha inuu la tashado. guud ahaanna waxaynu siin doonaa in uu isagu qofka shakhsi ahaantiisa uu isku yar daaweyn karo. kolley waxaynu ula talinaynaa qof kasta oo aad u isticmaala kombiyuutarka in muddo kasta oo 20 mirir kasta oo uu isticmaalo kombiyuutar si joogta ah u eego oo 20 second oo kamida 20 feet meel u jirta eego waa 20 weeyaan meel 20 feet u jirta u eego markuu 20 minute isticmaalo kombiyuutarka 20 second uu eego meel 20 feet u jirta. taasi waxay u noqonaysaa kolley inuu yara noqdo oo qofkii soo yar qaato break up soo qaato indhihiisina soo nastaan. تكلمنا كل تلنا وحين إكسايس يرى سمايو مدة سكوير أرقام هذا حنون كيسوي كمبيوتر كاستعمالية إنه بالإكسايس يرى سمايو قيب طلبات أي كان وحويا إنه قفك قليل إنها قليل أكو كينان مادام مدبدا أد كمبيوتر كو إيجي أما موبايل كو إيجيو وحي لاوي إنه بلينكن سمايو أما اللي بقص جاي إنه إيش يسميني سي هذه إيش واحد اللي بقصتها شن يتوان مر من تكيبة marka qofku isku ilaawo computerka aad u isticmaalo amba mobile aad u isticmaalo waxay keenaysaa qofkii inuu ilaawo blinkingaas amba libiqsiga uu ilaawo kadibna ishiisa ay dry noqoto ay qalasho iyadoo aanu sameyn wax libiqsiga oo lubricationkii isha ilmadii aan ishii wada gaadhin. marka kulli taasina waxay keenaysaa inuu qofkii dareemo discomfort amba deganaanshiya la'aan inuu dareemo. marka kulli waxaan kula talinaynaa qofka kasta oo isku arko tilmaamahaas inuu isagu intii uu samayn karayo barnaamijyada uu sameeyo tilmaamaha aynu siinay uu sameeyo sida inuu 20 kaas oo kale u dhaqmo 20 ka uu sameeyo 20 minute ee kastaba meel 20 feet u jirta oo 20 second eego
iyo inuu sameeyo exercise ka inuu sameeyo inuu badanaa iska xidho muraayadaha anti-reflectionka sida anti-reflectionka ee computerka loo isticmaalo amba mobiladoo kale loo isticmaalo inuu kuwaasoo kale iska isticmaalo faa'iido fara badan bay noqonaysaa oo qofkii waxay u noqonaysaa in reflectionkii faraha badnaa yeesha gaari lahaa inaanu gaarin marka kolley saameyn badan ayay inagu leeyihiin smartphoneska ina soo gaaray computeradaas waxyaabahaasoo dhani saameyn waxay inagu leeyihiin togan iyo mid toban bay inagu leeyihiin marka kolley dadkana waxaan ku boorinayaa un intii aadka u isticmaashay intii aadka u faraha badan la isticmaala inay iska yareeyaan oo kolley inay daruura keenta mooye ay yara koobaan intay isticmaalayaan maadaama saameyn joogto ah ku leeyahay computer vision syndrome-kaas waxyaabaha kale uu keeno waxaa ka mid ah in qofka qoortii oo kale ay xanuunto qoortoo kale uu xanuun ka dareemo garbahoo kale uu xanuun ka dareemo dhabarkoo kale uu xanuun ka dareemo waxyaabahaasoo kale markaad isku aragto waa inaad isku yara daydo inaad waxyaabahaas aad samayso sida reliefkaasoo kale aad yara samayso xanuunka ka taragtay ama waxaynu dib u dhigan doonaa dhinaca cudurrada ayuu qaybsamaa kolley xamdaay caadka hadda kolley nagu caadun baynu naqaanaa laakiin wuxuu leeyahay kolley qaybo kala duwan marka loo eego xilliga uu qofka ku dhaco haddaynu xagga xilliga ka eegno oo mid ku dhaca ilmahoo yar oo kale wuu kusoo dhalan karaa ilmuhu isagoo caadkiila wuu kusoo dhalan karaa oo kolley xilliga uurka oo kale haddii infection hooyada ku yimaado oo kale waxaasi halis ugu jiraa inuu qaado caadka oo kale marka laga tago xanuunada kale sida dhega-la-aanta oo kale uu qaadi karo laakiin wuxuu qaadi karaa caad ku yeelan karaa ilmahaasi marka taa laga soo tago waxaa iman kara mid badanka uu sababo ageka oo dadkeena badanka wixii ka badan 40 jir badanaa waxaa lagu arkaa caad inta ugu badan 40 jir marka uu soo dhaafo inta ugu badan waxaa lagu arkaa inay caad yeeshaan marka labadaa da-ood marka laga tago waxaynu iman karnaa oo kale sababihii kale ee keenayay haddii ay noqoto jug qofka ku dhacday oo kale mid jug keentay oo kale wuu iman karaa sidoo kale waxaa iman karaa waxaynu u eegi karnaa oo kale meelaha uu ku yaalo oo kale marka qaybaha aynu ku eegayno meesha uu kaga yaalo ma santarka wax ku dhaca badanka inta ugu badan caadka wuxuu ku dhacaa bikaacada gudaha ku jirta isha marka meesha uu kaga yaalo inuu eegi karnaa ma santarku kaga yaala meesha bartanku kaga yaala ma hareeruhu kaga yaala sida ugu badanna waxa uu saameeyaa inta ugu badan ku dhacda inuu hareeraha u ku bato taasi ay keenayso qaybtan bikaacadan isha amba lenska ishu way koraysaa intaaynu noolahay oo dhan way koraysaa koriinkaasi wuxuu keenayaa in proteinskii ay lahayd qaybtaasi ay ku ururaan hareeraha ururkaasina waxa uu keenayaa in uu soo samaysmo marka dambeysa uu samaysmo ay sii adkaato baasha ay sii adkaato lenska ay sii adkaato adaygaasi ugu dambeyn wuxuu kusoo ururayaa bartanka oo qofkiina keenaysa inuu argiisii guud ahaanba yaraado amba aan waxba arki karinba marka leydhka oo kale laga tago amba waxyaaba aanu arki karin kolley caadka inta ugu badan qalin baa la sameeyaa maalin kasta qalin caada baa la sameynaya laakiin bulshadeena waxa badan oo aad iyo aad u fara badan inta windha tiray kolley caadkaasi waa xanuun isaga la daaweyn karo oo qalin oo keliya qofku u baahan yahay waana qalinada ugu fudud ee ishu la galo marka qalinka haddii uu qofku ka baaqsado uu qalinkaa geli waayo waxa uu saameyn ku yeelan doonaa argiisa dambe oo wuxuu keeni karaa xanuuno kale oo sida galakoomadeen markii soo tilmaanay oo kale uu keeni karaa hadhowta hore uu keeni karaa haddii qofku kusii raago oo in muddo qofku uu sii qaato wuxuu keeni karaa inuu galakoomadaas oo kale keeno marka waxaynu kula talinaynaa dadka in xilliyada ugu horeysa marka loo sheegaba ayna suginin intuu araggoodu dhammaanaye xilliyada ugu horeysa u fiican yahay qalinka sameeyaan hagaag daawadayaal weli waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeena caafimaadka waxayna caawa ku falanqayn doonaa isla markaana ku qaada dhigi doonaa cudurrada ku dhaca indhaha iyo daaweyntoodaba doctor Saad Soomaalidan waxay leedahay dhaqamo u gaara iyo caadooyin u gaara waxaa jirta mararka qaar markuu qofku indhuhu xanuuno inay samaystaan dawo dhaqameed u gaara iyagoon wax dhakhtar la xiriirin si ay ugu daaweeyaan qofka xanuunsanaya indhahana uga shubaan dawo dhaqameedkaasi khatar intee leeg ayuu keeni kartaa indhaha qofka bini'aadamka waqti xaadirkan kulli malaha lagu sii yaraana saabeen waqtiyadii hore waxay dhici jirteen badanaaba xanuunada oo dhan hadday noqoto qofnaba baca qofka amba xanuunada ugu badan ee qofka ku yimaadaba lagu daaweeyo dawo dhaqameed marka laga tago indhaha waxay dhici jirtay in la isticmaalo dawo dhaqameedkaas maadaama aynaan xilliyadii hore aynaan heli jirin dawooyin toos oo ayna soo gaadhan laakiin xilligan dambe casriga waxaa sii yaraaday khibradii iyo aqoontii loo lahaa dawo dhaqameedkuna oo sii yaraatay oo amika hadda batay dawooyinkii caadiga ahaa ee tooska ahaa inuu imanayay
kolley dawlad dhaqameedkaas wax badanna waa la qaldi jiray oo qaladaad badan baa ku jira. guud ahaan marka loo eego imika waxaa laga yaabaa dawooyinkani waxay ka kooban yihiin waxyaabo laysku daray oo natural ah iyo kuwa laysku keenkeenay bay ka kooban yihiin. dawo kastana qofku ma qaadan karo. badanaa waxaa dhacda in la siiyo qof dawlad dhaqameed aan ku habboonayn xanuunka ku ahba contraindicated waxaa la yidhaha amba saameyn togan ku yeelan karta siina kordhin karta xanuunkan. maadaama ayna dadku aqoon buuxda u lahayn dawlad dhaqameedkii waxyaabaha ay ka kooban tahay isla markaana dadku aanay garanayn waxyaabaha dawlad dhaqameedkan ay ka samaysan tahay xanuunkan saameyn inta leeg bay ku leedahay. kolley wuxa uu keeni jiray indhala-aan ayuu keeni jiray qofkii laga yaabaa inuu indhala-aan ku keeno looga sii daro xaaladii. marka iminkii haatan waxaynu ku talinaynaa in dhakhtar qofku la xidhiidho marka uu dareemo xanuuno indhaha marka uu dareemo kolleyna aada looga fogaado dawlad dhaqameedkaas. waayahay doctor xanuunka xasaasiyadda ama alerjigaaska loo yaqaano maxaa sababa? xanuunkani waxa weeyaan waa falcelin weeyaan ka timiday guud ahaana jidhka oo dhan uu ku dhacaa. indhahana si gaara ugu dhacay inuu kaga badan yahay xubnaha kale isha. waxa weeyaan qofkan waxa uu diiday amba jidhkiisu diiday amba ishiisu diiday unbaa soo galay. marka waxa weeyaan waa falcelin ka timid taasun weeyaan. marka guud ahaan allergiga waxaan odhan karnaa waa falcelin ka timaada wuxuu diido qofkan amba ishiisu ay diido. marka waxa weeyaan waxa keeni kara qofkan inuu isticmaalo waxyaabaha imika sidoo kale badanka hablo waxay isticmaalaan indhakuush oo kale amba sidii qalin sunno oo kale laga yaabaa inuu hablaha qaar oo kale keena allergic. marka waxa weeyaan waa saameyn ka timiday wax kale oo qofku isticmaalay amba ku ah qofkan uu allergy ka qaadi karo. waxaa keeni kara oo kale inuu xilliyeysan yahay oo dadka badanka wuxuu ku dhacaaba xilliyo gaar ah ayuu ku dhici karaa. sida xilliga dabayshu badan tahay oo kale imka xagaaga oo kale aad buu ugu badan yahay. marka waxa weeyaan waa wax mawsim oo kale uu keeni karo amba waqti uu keeni karo waxyaaba uu isticmaalay sida creamya oo kale saabuunta oo kale waxyaabahaas oo dhan baa keeni kara allergiga. waa hagaag doctor waxaan ku siisiqaynaa guntiga gabagabadii barnaamijka muraayadaha iyo contact lenska maxay ka aaminsan tahay bulshadeenu? muraayadaha markaynu nimaadno kolley waqti hore waa bilownay muddo horeynu bilownay muraayadaha. bulshadeenu iskala soo qabsanaysaa muraayadaha inkastoo in badan qalad ka aaminsan yihiin oo ay aaminsan yihiin in muraayadahan aragga ay yareeyaan in iyaguna fahantooda ay dhimaan. kolley bulshaha waxaynu u sheegaynaa muraayadu inaanay iyadu keenin arag la-aan laakiin ay kugu biirinayso un arag kaa maqan. waxay ku daraysaa un arag ka maqan unbay u kordhinaysaa. aragga inta ka maqan unbaa loogu samaynaya inay u kordhiso laakiin looguma samaynaya inta uu qofku haysta inay ka kaxayso. kolley kuwa bulshahaan waxaynu odhan karnaa inta ugu badan maadaama ay bulshada imika xagga aqoonta aada ugu badan tahay oo dadkeenu ay u badan yihiin imika dad aqoon la ay u badan yihiin kolley waa la iskala soo qabsanaya imika muraayado aad baa loo baranaya. laakiin contact lenska kolley guud ahaan bulshadana waxaynu odhan karnaa wax yar baa yaqaana waxaynu odhan karnaa 2% yaqaana aynu guud ahaan ku sheegi karnaa inta taqaanaa 5% hadday ugu badato. 5% taasina waxay u badan yihiin hablo u xidha sida xaraga ahaan oo kale cosmetic ahaan u xidha iyo in yar oo kooban oo markii araggoodu aad u daciifay amba cabirkoodu batay lagula taliyey inaanay ka maarmi karin contact lens. marka contact lenskaas way nagu cusub yihiin imikayna soo gelayaan. kolley marka loo eego environmentkeenana aad bay ugu yar adag tahay in la isticmaalo oo waxa weeyaan maadaama dhasku inagu badan yahay dhaskaas wuxuu keeni karaa dadkeenu ayna aqoon buuxda u lahayn wuxuu keeni karaa in uu qofkii kusii keeno xanuun yaro kasii yaro badan oo infection oo kale inuu qofkii ku keeno. doctor Saad Cumar Maxamuud waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ugu dambeyntii maxaa taliya tusaale halkan uga gudbin lahayd dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadlay ee ku daawanaya iyo inta ku daawan doontaba? kolley xamday bulshadana inuu ognahayo xagga indhuhu aad bay ugu yar tahay. marka kolley tala ahaan waxaanu siinaynaa maadaama xanuunada indhuhuna badan yihiin sida imika galakoomada aynu soo tilmaamaynay oo kale qofku horta ugu horeyn inuu baaritaan joogta ah sameeyo. dadka badanka ayskoodu yahay amba da-doodu ay tahay 10 jir ilaa 40 jir tala ahaan waxaynu siinaynaa inay 5 sano amba 10 sanaba bal hal mar baaritaan buuxa oo indhaha ay galaan. baaritaankaas kolley waxaa lagu ogaan doonaa dee xanuun kasta iyo dhib kasta oo qofkan u haya. marka laga yimaado 40 jir ilaa 55 amba 40 jir ilaa 54 jir waxaan odhan karnaa baaritaan ahaan waxay u baahan yihiin min 3 sano ilaa 5 sano ayay baaritaan ahaan u baahan yihiin. markuu intaa kasii weynaaday uu dhowaado xagga 60 55 ilaa 64 wuxuu u baahan yahay inuu labadii sano ilaa 3 sano baaritaan galo.
hadduu 60 jir kor u dhaafana kulli baaritaan joogtaa buu u baahan yahay maadaama uu halis ugu jiro xanuunada aadka u khatarta sida galakoomada kale oo halis ugu jiro oo dadka da'da waaweyn la badana ay ku dhacdo dadka aadka da'doodu markay korodhaba oo xanuunkaasi ugu sii dhow yahay inuu ku dhaco waxaanu kaninu ku boorinaynaa qofka inuu barto xaafadoodu maxay xanuun ahaan hidow leedahay ama maxaa xanuun ahaan kusoo dhici jiray haddii imka galakoomadoo kale ay ku dhacdo ama macaankoo kale uu ku dhaco ama dhiigkaroo kale uu ku dhaco wuxuu saameyn ku leeyahay isaguna ishii saameyn joogtaa bay labaduba ku leeyihiin haddii xaafadiina hore u lahayd galakoome inaad aduna si joogtaa iskaga baadho ama xanuunkaa biyaha ay lahayd inaad adna si joogtaa iskaga baadho markaa baaritaankaa joogtada ah ayaynu kula talinaynaa ugu horeyn waxaa kalenu kula talinaynaa badanaa waxaa dhacda marka ishaba laga tagay xanuunada guud loo yimaado in dadku badanaa ay ka iibsadaan farmasiga dawooyinka talo ahaan waxaynu siinaynaa inaanay dawada farmasiga inaanay ilaa dhakhtar u qora mooye aanay isticmaalin guud ahaan bahda caafimaadka o dhan waxaynu kula talinaynaa maadaama uu ka saaran yahay ilaahay xil ka saaray caafimaadka bulshada in daryeelka koobaad iyo muhiimadda koobaad ay siiyaan kaalinta koobaadna ay geliyaan caafimaadka bulshada ay geliyaan aad baad u mahadsan tahay doctor waxaan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaligaad noo soo hurtay waxaan rajaynayaa barnaamijyo kaloo tiro badan inaad nagala soo qaybgeli doonto aadna waad u mahadsan tahay guud ahaan daawadayaal intaasi waxaa nagaga eeg barnaamijkii caafimaadka ee toddobaadkan waxaa inoogu marti ahaa doctor Sacad Cumar Maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgashay Hargeysa Group Hospital daawadayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysay anigoo Xamdi Cabdi Sogsoga dhinaca kaamarada waxaa Ilaahay ka sokow iskeen tusayay muuqaalka quruxda badan leh Xamse Maxamed Jaamac oo leeyahay cadowgaha jabo cimrigaana ha jiro intaynu ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan idinkaga tagayaa isma dhaafna ismaylowno salaamu عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.